dad badan ayaa aragtiyo ka soo dhiibtay arrintaas oo nagala hadlay annagana waan falanqeyn doonaa balse dhowr sheeko oo kamid ah sheekooyinka barnaamijka ayaan jecelahay Cabdikuriyo inaan mid kamid ah soo qabto وهاجاك daawadayaal haatan waxaan u gudbi doonaa dhinaca iyo sheekooyinkii xiisaha lahaa ee daawadayaasheenu ay toddobaadkan inala soo wadaageen iyadoo markaasi haddii aad doonayso daawade inaad sheeko inoo soo dirto ama aragti aad ka dhiibato qodobka toddobaadkaasi aanu barnaamijka uga hadlayno aad ku soo diri karto lambarka WhatsApp-kiisa oo shaashada ku qoran yahay lambarkaasi ayaad fariintaada ku soo diri kartaa adigoo isticmaalaya dhinaca iyo aaladda WhatsApp-ka Cabdikuriyo dhinaci waxaan u weecanaynaa sheekooyinka xiisaha lahaa ee toddobaadkan ina daawadahani waxa uu yiri magaciigu waa Maxamed jooga magaalada Nairobi Maxamed waxa uu yiri sheekadan ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago maadaama ay tahay sheeko aniga aad iiga qoslisay waxa uu yiri nin ayaa xaas guursaday habeenkii aqalgalka ayuu soo galay guriga markaas ayuu arkay 3 koofi oo miiska korkiisa saaran إذا الله سجل. عاود كوفية سنتا كوفينا ويكون بلعبة شيكدي. مركب سنتا كوفي أو ميس كركيس صارت. أنت كديف وحويري وحويدي وحأيهين كوفي ذن. صدق ذن كوفي محيط كوفي. سلام. ما رتي واحد طيب. ninka ayuu ninka guriga uu ku cusub yahay habeenkaas ugu horeyso waa la soo wada aqal galay 3 koofi oo rag ay leeyihiin meel bay saaran yihiin oo roodi adiga asoo koofi bale ay oo bila koofi marka sheekada ugu soo waday waxa ay ugu jawaabtay koofidaas waa tii ugu horeysa waxa ka dhintay ninkeygii koobaad oo la iga dilay oo koofiyo mid koofiyo waa sidoo kale ma yaanu dhawaad dhimanaya talabaadna waxay tiri waxa ka dhintay ninkeygii labaad oo isagana shil gaar ku dhintay subhanallah iyo gaar raaci shil gaar ku dhintay koofida saddexaadna waxa ka dhintay ninkeygii saddexaad oo xanuun u geeriyooday subhanallah عشان كوفي اسكودي هدي ميسك لا سارو مي وربلا تاغنا waxay tiri ninkeygi saddexaad oo xanuun u geeriyooday markaas ayuu inta siibay koofidii madaxa ugu jirtay soo koofiyo watay waa koofida madaxa ugu jirtay intuu siiyo oo uu ag dhigay ayuu wuxuu koofiyii kale u ag dhigay ayuu wuxuu yiri koofidaana waxaad ku tiraahdaa qofkii ku weydiiyaa waxa iska lahaa ninkeygii afraad oo lafiisa u cararay hadda fool hadda waxa sawaysaa waxa tiraahdaa koofiyada yaala hadii lagu yiraahdo Cabdishukri awareysay wardaawada yaal Cabdishukri uu tag gaaray لكن داود يا لوغادا دي انا واسكا يراها بيستي اموي مارتي بداري وحبا عجل waa shakiye maxaa ku fiican ku soo galiyay بداري ma jirin isliiba isbedeshay isliib room ku ogay joojisi dhoobo iyo waxay la soo baxday iyo dabayl bay la soo baxday bus iyo boor walaal bus iyo boor adigu gamba ku xirateen anaguna tana saaran hada bixin waayay la faagana la cararay sheekada xigta Cabdikuriyo waa samsam oo ina joogta magaalada Hargeysa waa salaamayna reer Hargeysa aad baa u salaamayna sheekada Hargeysa ka dhacday waa la leeyahay sidaan hadda Hargeysa wax ka dhacay horta dhowr meelood baa wax ka dhacay reer Muduga aad baa sheekooyinka loogu soo hadal qaataa iyo reer Burco aad iyo aad hadda Hargeysa nagu soo biiday salaamayna waxay tiri gabadhan oday London ka tagay baa Hargeysa inan da'deedu ay tahay 18 jir oo uu dhali karo kula aqal galay oo dhali karo sabti hore loo yiri ninku dhali kara ku dhaqan kara Cabdikuriyo sheekada soo la iskala yimid waxa soo socday kaadi marka odayga waxa ugu jira amaba ugu jirta lug caag ah iyo gacan caag ah هلا sheekooyinka qaar inaan akhriyo way ugu adag tahay qosolka maanta inaan taayir aadi markii xafladii arooska ay dhamaatay kadib ee loo kala tagay ayuu qolkiisii soo galay markaas ayuu lugti iska bixiyay oo halka dhigtay gacantii iska bixiyay oo ag dhigtay halka kale u dhigtay ha soo haray haddana ilkihii oo ilka feegay wareey
horta waxaas oo dhan gacan la bixinayo lug la bixinayo waa dul qaadanaya laakiin afka la bixinayo ilmo yaroon saqiir oo jiri ilka feega ugu jiraan kowde intuu ilkihii bixiyo xagga dhigtay lugtii iyo gacantii ilkihiiba waa la bixiyay soo maaha maxaa haray inantiiba albaabka ka booday oo orod isdhigtay ilaa reerkeedii hooyadeed baa kusoo booday oo tiri hooyo waa adiga arooska ahaayo caawa baa aqal kale na maxaa ku soo celiyay way canaanatay horta meesha maxaa la soo celiyaa tay gabarna caawa la guursaday oo guri kale yani inay caawa guriga kusoo laabato caadada iyo sharciga iyo dhaqanka iyo meel kastaba wax la yaabay ka tahay soo maaha hooyadii markay gabadha tiri naa maxaa ku helay naa maxaa ku helay ayay inantii ku jawaabtay hooyo ninkiiba wuu kala daataatay ودوا نكيبا دوب إلا الحنا كمان نقصلين بأورنجنا إسلامي ما يقول مية شيء الملأ لق ملأ قعان ملأ أف ما تشوف من صغيرة صافرست أو قعان لا أو لق لا هذا مو تعسينا ما كل ما كبسة حلقانة سيدي تبنشرنا واحد ويا رئيس ما nin weyn oo dhali karo odayaa la yiri ba oo ilka dhacsadada ilka feeg uu soo gashtay habeenkii arooska uu iska dhisay horta habeenkii arooska uu istaagay kamaradu waa ku dhacday laakiin waxa ka dambeeyay inay gabadhi tira oo ninkiiba uu kala qaatay gabadha waa kala lugaha iyo gacanta qolof ilo qota uu sheeg hawshiri sheekada ugu dambeysay dhankeyga intaana soo qabanin adigu maxaa sheeka oo caawa daawadayaasha u haysaa hal sheeko waa sheeko la soo xaday waayahay aan ka soo xaday xagga ay reer Hargeysa waa tahay oo dhalinyaro fanni ah haye ninba wuxuu ku yiri aabe waa miyi horta haye markuu miyi ma geenina waa tahay sheekada la soo xaday haye dil lagu qabsado nasiibka maya waa sheeko la soo xaday haye ana soo xaday waa tahay sheeko waliga hees la xaday baarik jirtay sheeko la soo xaday sheekooyinka waa xadi jirnaa anagu haye riwaayada soo xaday groupkayga kamid ahay وريجي مع معبر وكترتي تي وحكترتي تي إيشي قربان حاجة قبصة يا صاحبي أنا صاحبي قرن ديران كصاحبي هل كان كسلامي واتاي وري ويناتي وسلامينا أدب وسلامي أجاسي ما هيجي قالب ورالكي هل كان مقدشان كوجا الله يدني النمذية الرين مقدشان آمين الصوماليين شيء كذا مية كذا عادي نبى قبل ضد كذا عليه مركو دلائي قبلتي بوحي يصير ويلا شان يركع جيل جرها أما قاعد أنت لا عياران نوع كل صباح ذا واتاي نوع كلاي هو نوع كلاي ورويرات كلها مو كده واحد واسي كله واحد لا عيار ورويرات صباح لا عيار هذا شجع بابا كراسة بابا كراسة يا سكرش كذا دوس أربعة كيف هاي يقول يردي وقت هاي يردي واحد عادي نبغى جوار العيار تري بس كلا عيارانو واحد سبح ويا أروينات وسكبر واقع سيا وحس لي الحمد لله واحد صدق كوصباحي سكسي وتهوشين هذا ما عرفت يدبر كمان دي واحد كوصباحي أروينات واته أروينات كخطر موك أيه وصباح كمان دي والله يابا سوير ورها مد بكوش يجيب وحن كام موقدة محلوس نقدة حلوس وحليها علاش أنت يا رحيلة يا قرطة صافوشة ما أنا عرفت إني منك قاضي الله مرة بدي إني ما أعرف حلوس ما هتوضع دمر كحلوس كله أوكي وأنا قرح قرح ده حلوس أو ده لا مرة عرفت حاجة فوشة لا مرة ما عرفت ترى كوس أو علاش أنا عرفت الجدن أو باهي المدينة دور سنة قديم واتاي وابا يكو وين حلوس تاي قرحي حلوس قرح قرح بقى قرح بقى كون تيجي نوقف قرح حلوس وحيري محلوس نقط مس واحد كلا نقط حدي حلوس نقطه حردا ولا سيد كلام يا أبي ومعناه إنه نقول نقط أروينات دور نقطه حتى واحد كلا نقطي لكن جوريس بيهوش ولا تجري شكله أسيق كذا قال أنا هرجيسك كصح عليك بل يرى هرجيس أدنى سلامية أنت واحد شردن يا أصحاب تيجي سلامية وحيري أضيق وحكيري أب كل نمن كنا وكحرام
haye hadduu saa kuu taabto waa xaaraan haye hadduu kuu soo dhawaado waa xaaraan haye abba ilaahay ka cabsi iska ilaali dardaaran fiican dardaaran culus gabar yaro intaa dhagaha loogu shubay waxay istiri dardaaranka aabe xiji haye si fiican bay xajis waa tahay gabadhii waxay xajisaba odagii waxa loo keenay 100 halaad haye gabadha moogta waa la gadan jiray si fiican si waliba sharaf ay ku dhahan si fiican fiiri walaalo waxa hadda gabdhaha dilaya waa gabdhihii waxa laga daayay xaragada aad iyo aad cara la gooyaa cara ilaahay bay leedahay iyadoo dambi ku jiro bay haddana wax kale ku sii jira habayana warka kugu sii daalina 100 halaad iyo qori iyo faras baa la keenay adduunyo dhag haye odagii waxa asaas u fiirshay masawa geel cascasaayo dhinaca iyo carabaha nabigu sheegi jiray alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam si waxay dhaafin haye riyo gabadhaas iga bedelo haye gabadhii buu dhag ku sii haye gabadhii dardaarinkii furihii kama bedelin haddii lagu guursaday iyo waxaasoo dhan casharka hore ugumuusan darin haye waxaan raggu ku xalaal yihiin markii lagu guursado looguma darin ninkii geela laga qaatay habeenkii gurigii gabadhii waa si hawsha sheegaysay gacmaha ma furane aduu wuxuu yiri kaal hadde haye gabadhii war naga tag bay tiri haye xaaraan baa naga taaya waa sax ila aabaha sida u soo baray haye naga tag bay tiri haye war naga tag habeenkii dhan muska ku booda ninka waa yaa madaxa laga qabto waa yaaban yahay geeli waa u muuqda geeli iyo faraski iyo hadda kaala iska arag waa la yaaban yahay haye xogaa markii hawsha halka maraysay buu subaxii soo araa laba kala doorayniyo haye in gabadhi aad igala soo tagtay geeliga igu celisay iyo gabadha qufulkan baaso ku go'an inaad ka farto waa runtiis soo ordayo markaasuu yiri gabadhii wuxuu ku yiri kan waa ku xalaal saas ahaa waa la soo orday gabadhii aduu habeenkii hawshu waa dhacday haye subaxii bay istiri waxaan barwaaqada ma odag u sheegtay xalay dhacay haye sidii aaba xalay waxa la duqeeyay gaalo haye wabalaaya dhacday odagii suuligu ka soo baaba bay tiri saa odag marada ka dhacday si kaasoo kale watay abiyo dhalay naga tagbi kala baa kala kii hooye waxaasna waxa iska ahayd fani baa shaqada hargeysa aanu ka soo xada waa cadaysan tahay dhigta soo feer dhigtaan inta soo gurgoysaan ilmaad raadu balihi aad baa waa shaqo la isla wadaago jilayaashu waxa way isla wadaagaan cabshikr aad baa mahadsan tahay waqtigu aad inoo kulaalaya awgeey inaan soo koobnaayaan jecelahay qaybo badan oo barnaamijka kamid ah ayaa inoo dhiman sheekada ugu dambaysa dhankayga ayaan kusoo gunaanadaya hadda ka hor baa la yiri nin cabtooy ah cabshikriyo dadka cabsan sheekooyinka laga sameeyo marqaanka sheekooyinka laga sameeyo يعني مصاير كشيكوين كلا قسمي وقوة أنا أقول شعلها أقول حساب بقى هذه هذا هذا كوربانين عبتوي وحا وصاو عي إسبيتال إسبيتال بصاو وعبسية هاي يا كيالا عد كتالا ولا وحا يري عسبيتال كي هبل أهمية marka rasaal ugu yiri maxaan ku qabanaa maxaa dib ah oo jira cabtooygii baa intuu soo booday waxa uu sheegay magiciisu waa hebel buu yiri saarsade ayaa la igu naanaysaa waxa aan deganahay degme heblaayo markaas lagu yiri haye waayahay ayaa ka xanuunsan maxaan ku qabanaa markii barashadaada laga soo tago markaas uu yiri maye ma xanuunsaniye waxaan islahaa danaystay yaa lagu moodin oo maalinta xanuunsada kaliya isbitaalka taagan naxariista ku soo degtay وعبسنا لكن قاب كو يعني مسكحي ساوي فكرتي قاب عن والله بصوا هي ساكت وجهي هي انت موقت ولا سكت وجهي كل هالقف لو مده يقد وجهي دور عبتويا با waxay ku cabi jireen guriga daaradiisa guriga daashka banaanka daarada bay ku cabi jireen ayo abaya bay habeenkii dambe waxay arkeen albaabka lama furi jirin oo waxay u moodi jireen in magaalada ku dhex wareegayaan sida daarada dhexdeeda deedeedka ku dhex wareegi jireen hadhowtii kale ba albaabkii furan bay arkeen wariyo naga soo saara meesha waa dhaqaaqan ayagoo leecay dayax marka ma arki jirin waa tahay dayax bay arkeen si oo halkan waa halkee suyiri xaafadan leerka weyn way ugu cusubta
weligeyba ma arag xaafadan leyrka weyn way ugu cusubta haye marka waad u jeedaa guriga un baa laga soo baxay dayaxi baa la markaas waxay la noqotay xaafad kale wuxuu yiri xaafadan iyo xageeba ahayd si xaafada leyrka weyn waa tahay aad baa u mahadsan tahay Cabdi Shukri